السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلينتا آباها Soomaaliyeed meel cidla ah kuma dhacayso waxayse ku laaban doontaa kuwa dulumka saaxiib la noqday cadaalad darrada wehel ka dhigtay musuqmaasuqa darajo sare ka gaaray isla markaana heerkan gaarsiiyay aabahan iyo kuwa kale oo la mid ah oo Soomaaliyeed in ilintooda ay quwata habeen iyo maalin kana danqan waayay rabana inay kusii bulaalaan marka waxaan leenahay qalbiga Allah kuu qaboojiyo aabe adiga iyo inta kale ee murugada ku jirta kuwa idin dulmiyayna waxaa imaan doonta maalin adduunkan haddii aan lagula xisaabtamin aakhiro lagula xisaabtami doono muuqaalka sii gudbi sheergare laygare oo la sii wadaag asxaabtaada maxkamada ku socoto caafimaadka ku socoto ay yeeleen anigoo dhammaantii isku dhaxayaacsan oo meel u socdo iyo meel kale aan ogeyn marka amare i weydiiyeen anigana go'aanka waa iska gaari hadda maanta waxay qoomiyada yeeleen sheego adig kalaga ma ka dhimanin waxaas ka dhintay jariir weyn oo dhan waa mid ka mid ah waalidka Allah u naxariistay generaalkii la dulmiyay darajadiisii la dafiray intii uu noolaa cadaalad darro tii u sareysay lagu sameeyay wiilkiisii hortiisii lagu dilay gurigiisii ciyaal yaryar inta lagu soo fasaxay la bilileqaystay maalin cad iyada oo la leeyahay wadanka dowladda ayaa ka jirto canug yar oo darajada sarkaalkaas uu haystay aan haysan tababarna ah goob fagaar ah uu ka sheegay in beeraley uu ahaa inkastoo uu arkay beeraley inay caay tahay ha yeeshee laga soo saarayay waxa qayb ka mid ah uu cuno ama uu kusoo koray sarkaalkii awood ka weyntiisa loo adeegsaday sarkaalkii la isugu tagay ee la isugu habarwacday jenaraal Sheikh Axmed Cali oo naga hooseeya haddii aan gunta u daadego geeridiisa kadib xalay dad qowleysata la sheegay inay ahaayeen oo wasiirada ay ku jireen dowladana amar aan ka diidi karin madaxdeeda xitaa haddii ay qaldan yihiin awaamirta madaxda dowladda ayaa u hoosgeliyay u taraarixiyay aabahan aad daawateen oohintiisa in wiilkiisa degdeg lagu aaso in qabuuraha gaar ah oo ay dowladda saraakiisha ku aasto lagu aaso horeyna waxay lahaayeen ma ahayn jenaraal ee wuxuu ahaa beeraley taas oo ah mid iska hor imaanaysa iyo in ay ka dhaadhiciyeen in la dedejiyo aaskiisa aabaha Soomaaliyeed ayaa durbadiiba inay dhinacyada ka mareen arrintaasi qaadsiiyeen ha yeeshee wadatashi kadib dadaal dheer kadib waxa uu sheegay oo afkiisa ka sheegay sida aad maqasheen in arrintan ay tahay arrin qadiyad weyn ah oo lagala xiriirayo guud ahaan inta generaalka uu matalayay kana soo jeeday u danqanaysay haddana u danqanaysa oo asiga uu ka mid yahay wuxuuna sheegay in go'aan gooni ah uusan qaadan doonin wixii xalay dhacan ay yihiin wax aan jirin generaalka aan dowladda aasi karin iyada oo la rabo in la hoosgeliyo oo wax la qarinayo sida xogta ay tilmaamayso taas oo ah in la sumeeyay oo kista loo taariixiyay taas oo dowladda ay ka baaqsanayso haddii la baaro in fadiixa kale banaanka imaan karto iyo in dowlad markii uu noolaa ka hadli weysay xaqiisa ka qaban weysay kuwa cadaalad darrada ku haystay kuwa gurigiisa ku weeraray oo isku difaacayna mag u qortay xabsina ugu xukuntay iyagana weli banaanka ay joogaan oo ay iska liirsanayaan biyaha qaraha babaayga tufaaxa iyo canabkana ay agyaalaan maalin ayuu dhiman lahaa wuuna geeriyooday inta rabtay inuu geeriyoodo generaalka ha yeeshee hadda warka soo baxay oo aan idinla wadaagayo wuxuu yahay oo aan kasoo xigtay eheladiisa in wax kasta ay isbedeleen ninkii wasiirka sheeganaya xalay ee caafimaadka ee warka loo soo dhiibayna loo soo taraarixiyay ee booskiisa ilaashanayayna warkiisa ay dhaheen wax kama jiraan waaye shaki ayaan kasii qaadnay iyadoo shaki uu jiray raggii maxkamadaha iyo xildhibaanada ahaa ee u tagay ninkan keligiisna qol gashtay ee ku aqriyay wax alaala wixii ay ku marsiin karaanna dib looga laabtay
marka ninkan waxay u badan tahay generaalka la naxariistay in baaritaan la gelin doono fadeexad meeshaas ay kala doonto oo ah in ugu yaraan la sumeeyay dayacada marka laga tago iyo in arrintan ay ahayd mid ku talagal ah waxaana jirta in qoomiyadda uu ka soo jeeda hadda ay indhaha fureen oo ay kaceen oo ay leeyihiin wixii dhacay ka harimeeno ilaa ninkan laga baaro iyo in nin astaan ah uu yahay oo juhar lagu aasaayo iyo in iyaga u madax banaan yihiin oo dowladdii marka hore diiday cadaaladiisa hadda aysan ku marmarsiyoonin generaal ayuu ahaa iyo anaga ayaa aaseeno iyo in ninkan wixii loo hoos qariyay ee soo saaraan warkaas ayaa ugu dambeeyay wili xaaladda way taagan tahay waxaana jira wada hadal la sheegay inuu socdo laakiin odayaasha qaarkood ay diidan yihiin qaarna laga yaabo inay qaataan laakiin waxay u badan tahay in aysan qaadan oo iyaga meedkoodii ay asturtaan oo juhar ay geystaan sidoo kale waxaa soo baxay warar ah in askartii la xirneed hadda asiguna dayacaad caafimaad darro ah uu wajahayo xabsiga uu ku jiro oo aan loo tagin isbitaal la geenin xaaladiisana la iska daawanayo lana rabo in mid sidan oo kale ah loogu hubsado godka haddii dadka ay ka soo jeedaan aysan isla xisaabtan iyo sharci aysan la marin dadka dulanka iyo dhibka ku haya. Assalaamu calaykum.